noqotay hooyadii bay noqotay hooyadii raascasayr waa shirkii la isugu yimi ee lagu go'aansaday in maamul lagu samaysto waxaa saldhig u ahaa baargaal guusha inoo soo hoyatay maantay waxay ka bilaabatay magaalada baargaal dooma duubayo waxa aynu ku dhawaaqnay oo ah inaynu isku tashano oo maamul samaysano waxaa loo baahan yahay inaynu ku wada shaqayno midnimo inaynu ku shaqayno cadaalad inaynu tirtirno aqoontarada inaynu tirtirno cudurka inaynu tirtirno gaajada inaynu tirtirno inaynu gaarsiino degaanka inaynu gaarsiino maamul goboleedka raascasayr degaankiisa inaynu horumar gaarsiino waxaynu ku dhaqmaynaa siyaasadda ah nabadgelyada inaynu gobollada inala dariska ah aynu ku kula noolaano nabadgelyo iyo shacbeer iyo dawlad waxaa codsiga in qof kasta oo reer casayr ku nool maamulkaa ku nool degaankaa ku nool cid kastuu yahay iyo qof kastuu yahay inuu ku noolaado nabad iyo barwaaqo iyo bashbash waxaa inoo ballana inaynu saxda u xiranno inaynu horumar gaarno horumar si lagu gaarno waa inaynu shaqaynaa waa inaynu ubadkeena jahliga ka saarno ubadkaas yararka ahi waa inay jahli ka baxaan waa inay bartaan midnida waxa la yidhaahdo dawlad waxay tahay dawlad ma yaqaanaan waa inay dawlad bartaan waa inay ka soo baxaan kuwii berita maamuli lahaa waddankaas waxaan iina jeeliyaa oo marka iina jeeliya inaynu gaarno barwaaqo iyo bashbash inaad ku noolaataan caafimaad in ilaahay raxmad khayr ayna siiyo oo kuleelkaa ilaahayna soo qaboojiyo waxaan leeyahay baargaal ha noolaato raascasayr ha noolaato noolaada Thank you.